kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkana barnaamijka waxaa marti iigu ah oo istuudiyaha v o a ee magaaladan washington nagu soo booqday guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid ee somalilan faysal cali waraabe. mudane injineer faysal cali aad baad ugu mahadsantay inaad nagu soo booqato daarta v o a ee magaaladan washington. mahadsantay faysal bal waxaad ugu horeyn marka hore ka warantaa safarkaaga magaaladan washington aad ku timid wuxuu ku salaysanayay iyo weliba ciddaad saragteen. bismillahi raxmaan raxiim marka waad mahadsantihiin qaabilaad ay qaabisheen waxaan ku yimi halkan waxaan u yimi inaan la kulmo state departmentka waa ogtahay oo magaranaysaa baryahan somaliland buuq baa ka dhex taagan annagii qoladan reer garoowe marka arrimahaasaan doonayay inaan wixii ra'yi aan ka qabno annagu somaliland ahaan iyo xusbi ahaanba arrimaha soomaaliya iyo arrimaha somalilandba inaan u waadix state departmentka la wadaagana informationka. marka ma xukuumadda ayaa ku soo dirtay mise iskaabaad u socotay? maya mar hadday arrintaa ay tahay magaranaysaa arrin caama national issue hadduu tahay isku cod baanu nahay ma kala yihiin markaa dowlad iyo mucaarad somalilanders baanu nahay. maxaad isweydaarsateen markaa madaxdaad saragteen ama dadkaad saragteen? waxaan isweydaarsanay dee inaan somaliland ay u baahan tahay inay xuduudaheeda o dhan ay gaarsiiso administrationkii maamulkii gacanna ay ka geystaan meelahan magaalooyinka yaryar ee magaranaysaa shirarka lagu qabanaya aan u aragno inay tahay shirar dhibaato keenayana waxaa keenaya waxa weeye dhaqaalaha yaga ayaa noo saamixi waayey inaanu maamulka ku fidino dhulkeego dhan markaa si maamulka loogu fidiyo somaliland tuulo kastaba in dhaqaala la siiyo. beesha caalamku waxay ka hor yimaadeen go-aankii ay ciidamada somalilan ku galeen taleex. waxaad moodaa beesha caalamku weliba maraykanka iyo midooda yurubba inay arintaasi ka biyo diideen oo somalilan ka codsadeen ciidamada. arintaasi siday xiriirkii siyaasadda dibadda ee somalilan arrintaas siday u dhaawacday? siday u buunbuuniyeen local mediahu maaha waanan laga bajiyey waxaa lagu yiri magaalada waa la isdeliyaayo waxay isdelaysaa maamulka garoowe somaliland waan ka saarno wax isdilaya ma jiraan waa iska hanjabaad annaga iyo magaranaysaa garoowe weligees baanu dilin baan haddana isdili mayna baan nidhi waxna isugu dilaynaan ma jirto waa la iska bajinayaa dhulkuu noo kala calaamadsan yahay dad oo labada qoloba nabad samaysatay markaa waxaan haloo dhega taaganaya meesha waxaa jira uun maamul la-aane maamulka hala gaarsiiya ee dhaqaalo bixiya baan nidhi. faysal waxaa la leeyahay gelitaankii taleex way dhaawacday siyaasadda arrimaha dibadda ee somalilan waxaana taasi ay sababtay in xitaa xuduudihii somalilan ay la lahayd dhinaca ethoobiya iyo jabuutiba ay xirmeen soo lama oran karo marka arrintaasi lug bay ku leedahay? iskuma xidhna waxa weeye horta waxba namay dhaawacin waanayn u sheegnay haddii aan laga hortegin shirkaa meesha lagu qabanayay ee lagu abuuriyey nabcaashaha iyo qalalaasaha lagu abuuriyey qaarkood leeyihin hala isqarxiyo qaarkood leeyihiin inay somaliland u keenayso deganaansho la-aan. deganaanshaalaha somalilandna wuxuu u keenayaa deganaansho la-aan jabuuti iyo etoobiya. deganaanshaha xamar saameyn badan kuma leh etoobiya iyo jabuuti deganaanshaha xarigiisa ku leh marka waanu ka hor tagnay inuu shirkaas aan meesha ku qabsoomin. haddana waxaa loo dhisayaa maamulkii loo dhisiyo kasoo qayb galaban dadkeegana annaga waxay tabanayaan wada hadlina laakiin inay gacan shisheeya soo gasho oo fidmo wada oo galaan mayna baan. waa tahay faysal dadku waxay leeyihiin somalilan qaabka ay ula dhaqmayso ay u cadaadinayso dadka degan gobolada khaatuma waxay ka hor imanaysaa wixii ay somalilan ka dagaalantay 20 sano ka hor oo ahayd inaan la caburin oo ay ayahoodana ka tashadaan. marka dadka deegaanku inay ayahooda ka tashadaan waxay doonayaan samaystaan meeshay doonayaan raacaan haddii aad caburisaan soo kama hor imanaysa idinku mabaadiidii aad idinku isku aasaasteen. adeertaasina inoo socon weyday NFD baa socon weyday soonaha shanaad baa socon weyday jabuuti socon weyday magaa somaliland waa hal qol waa hal dal qabiil maaha tuulo maaha isagoo midaysan buu soomaaliya ku kormay isagoo midaysan uu ka baxay midnimada soomaaliya 1990 garaad saleebaan waa saxeexay cali garaad cali khaliif waa joogay laakiin maaha in la yidhaha ra-iisul wasaaraan ku dooranayaa dhiigga dadka iyo fidmada oo hebel baa ku helay wax soconaya maaha somalilandna lama qurbeynayo. waa tahay waxaa imika soo baxaya in xisbigaaga u cediyo xisbiga wadaniga kale ay soo saareen go-aanna ay leeyihiin waxaan ka soo horjeednaa inay sii socdaan wadahadaladii u dhexeeyay somalilan iyo soomaaliya
maxaad go'aamadan fikirkan muxuu ku salaysan yahay go'aamadan soo saarteen waxa weeye horta Soomaaliland iyo Soomaaliya hadalada way leexdeen waxa leexiyeen waxa weeye Turkiga leexiyay Turkiga dhexdu kaga soo booday dadkii bilaabay muuheen wadamada westernka bilaabay waxay lagu heshiiyey qaarkood lama fulin dowladda Soomaaliya dowlad midaysan maaha waa 4.5 waa qabaa'il kala aragtiya dowladda Soomaaliland wixii ka dambeeyay kulankii magaalada Turkiga labaad wax coherent policy oo siyaasad midaysan iyo objectivity ma noo sheegayaan transparent maaha heshiiskii hawada waa la laalay marka inay maanta Soomaaliland waqtigeeda ku lumisay oo Soomaaliya hadal aan macno lahayn iyadoo bulshada kale caalamka oo dhan baylihisay oo taasi keentay in misinformation laga buuxiyo oo taasi keentay taleex ilaa ka baxa oo ka go'een adduunka intiisi kale socon mayso waa in adduunka intiisi kale soo jeesana Soomaaliya waa mayd lama dur fadhiyo halaga tago laakiin adduunka kale ay noo fureen adduunka kale si aynu tiqadeena uga soo ceshan lahayn iyo magaalada aqoonsiga uga tahay la halageeyo laakiin waxa la leeyahay go'aankan idinka iyo xisbiga wadani baad gaadheen leedihiin yaan la sii wadin wada hadallada wuxuu ku salaysan yahay idinkoon wax badan loo kulahayn wada hadallada oo idinka la idinka reebay dhinacii wada hadallada Soomaaliland aad uga qaybgalaysay marka arintaas aan ku mid lahayn oo Soomaaliland ku midaysneen meel mari maayo iidan waa inaan ka qayb galnaa haddii kale waa inay waxay dowladda tigsan naga ansaxaysaa oo tira waxaan la tigayaa bal nala eega wax ma ku darisaan wax ma ka saaraysan waxba noo soo gudbiyaan laakiin nin kala diyaarad iska fuula hore noo soo martay kuwa shidaalka qodanaya aan la sharciyanba wada hadalaas iyo mid nooxba kama jiraan waa waqti iska lumay dowladda sanad boo haray xaqii ku dambeynay marka wada hadallada Soomaaliya waxa weeye marka labada qodob weyn waanu ka helay in Soomaaliland iyo Soomaaliya laba entity tahay qodob kale waxa weeye in qolkiisa wixii hesho wixii kala dhaxaysa waa inuu ka shaqeynaa sidaan uga shaqeyn lahayn nabadgelyada iyo biologiska iyo culture-ka iyo hadday waxba waddan u tari karnaa inay ciidamadooda Uganda geenayaan ee booliiska ku tababaray inay keenaan Mandheera iyo in ciidamada militariga Soomaaliland ku tababartaan iyo oo anagu waxay Afrika u qabano laakiin Soomaaliya ma isku darsanaa iyo ma kala tagnaa waqtigeedii lama joogo Soomaaliya ma jirta hadda wax Soomaaliya oo midaysani ma jirto haddii ay xukuumaddu ku adkaysato madaxweyne Siilaanyi inay sii wadaan wada hadalladan hore way u tageen laba jeer hore u tageen intaan ka hadhnay waxa ka keeneen ma jirto waxaad tiri waxaan qaadacnay baarista shidaale laga wado Soomaaliland shirkadaha ay ka wadaan oo xukuumadda Soomaalilandna ay heshiisyadaas la gashay maxaad u qaadacdeen wixii heshiis la keenay baarlamaanka oo la sharciyeeyo intaasoo shirkadood imika waxyaalahan maanta State Department ay nagu canaanadeen ay ka mid tahay imise shirkadood baa marka ilaa afar baa weeye ilaa afar baa xagee ka wadaan marka meel laga wada horta wuxuu la kala qaatay waxa lacag kama warhaysan marka meesha laga xalana ma socotiyo baarlamaankii sharciyeeyay lama soo mariyo ciidamada imika aad uga sensitive yihiin Mareykanka imika aan doonay madaxweynaha kala hadlo hadaa ila private army la sameeyo lanaga ma talagelin hada si uu dhigayana waa si khatara marka waxa weeye in wixii jira la cadeeyo oo anaga naga ansaxsadaan anagoo aan daafacno marka wixii soo baxaan oo cod midaysan ku daafacno waxa la sheegaya in dhawaan ay Soomaaliland Djibouti u gudbisay 3 qof oo loo aanaynayo argagixiso sabab arrimo argagixisada la xiriira maxaad arrimahaasi kala socotaan sideena u aragtaan doorto waxa weeye haddii labada wadan ka dhaxayso in isku gudbiyaan heshiis caynkaasi adduunka dhaw ka dhacdaa waxa mar haddana Djibouti inta soo orda qaadan dawladdii weydiisatay marka go'aanka waad ku raacsantiin maadaama laba dawlad ku heshiis yihiin oo wax isku heshiiyeen waan ku raacsanahay iyagoo marbayno soo gudbiyay Ethiopia mid barino dhaawac waliba dastuurka Soomaaliland sidoo qarayo haddaanan khaldanayn qodobka 35 waxa la leeyahay waxa ku yaala in qof muwaadin reer Soomaaliland aan wadan kale loo gudbin kareyn marka go'aankan iyo dastuurka wax ku qoran soo iskama hor imanayaan horta qaarkood ma waaha Soomaaliland dadka la gudbiyay Soomaaliland qaar baan ahayn xagee ka yimaadeen Soomaaliya qaar ka yimaadeen marka Soomaaliland bay deganayeen Soomaaliland deganayeen imsa bilood bay deganayeen xogtaad haysaana maxay tahay waxa la ragii u facilitate gareeyay inay yihiin magaalada qarxi Djibouti oo reer Soomaaliya yihiin marka ma saddexdood marag baa Soomaaliland oo isna waxaan dibadda ka yimid yahay passport ajnabi haysto
ayaan filaya. marka qodobka isaga ninka Somalilanderka ah miyaan lagu salaynayn dastuurka idin yaal hadduu dastuurka qoriyo waa breach baa lagu soo wala qalday waa qalataasi wana iga dambeysay arrintani waa tahay dhinaca doorashada Somaliland haddana wax ka weydiiyo doorashadii 12 bilood baa ka dhiman walina Somaliland lagama dhaqan gelin diiwaan gelintii xeerarka qaarkood waa qabiyo dhammaan duruufahaasi jira ma kula tahay ama ma ku muuqataa in doorashada Somaliland ay qabsoomi karto horta sanad baa ka yartahay 12 bilood waxaan hadda xooga saarnaa waxa weeye in voter registrationkii habkii waanu qaadanay alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan jeclahay September voter registration oo dhamaado Decemberna oo noo dhamaado hadda la yiraahdo 6 bilood gudaheedna doorasho dhacdo laba doorasho oo kala qaadayna hadda la yiraahdo dad baa ku doodaya in labada doorasho la isku daro marka maxaad ugu aaminsan waxaad aaminsantahay in la kala qaado wallahi saddex xisbi xun ka saarsan in la kala qaado dadkaygu awood ay aqoon in laba fud doorasho ku galaan mar qura male waa tahay marka xisbigaaga haddaan u imaado doorashada sideed ku galaysan diyaar garowgiina siduu yahay waxaan la ii sheegay in musharax xisbigaaga iyo adigu aad ku kala aragti duwan tihiin arrimaha qaarkood isku aragtaan marka sideed u qorsheynaysaan doorashada inaad la baartaan waxa way xisbu laba qof ma xisbu policy buu leeyahay xisbiga policygiisa qofna ma sheegan laakiin hadda isku aragtaan nahay xisbiga oo dhan arrimahan ka hadlayo commission kale magaranaysa voter registration habka loo qaadaya leh la magaranaysa labada doorasho keeba la soo horeysiinaya in la kala qaado inta way iska aragtaan nahay laakiin waxaa jira warar sheegaya in adiga iyo Jamaal baad ku kulanteen dhawaan Dubai oo xitaa kulankiina ku kala kacdeen oo kala aragti duwan tihiin oo la leeyahay Faisal wuxuu salugsanayay Jamaal oo qof kale doonayay inuu ku bedelo maxaa ka jira arrimahaas waxa soo dacaada la wada gowle xisbiga waxaan doonay soo baxay sanadkan soo baxay hadda la yiraahdo qofaan Jamaal ahayn miyaad markaas soo anu afkay laga maqal ma ogtahay ilaa hadda anu musharax baan leenahay waxaan ku kala kacnayna ma jirto maanta maalin iska dhownahayna Jamaal ma jirto waa dacaayado waa gartay waxaad iga warantaa dhawaan xisbiga kulmiye iyaguna waa kuwii khilaaf u dhex maray madaxweyne Siilaanyo isaga imika musharaxa Muuse Bixina wuxuu noqonayaa ama sii ahaanaya walina yahay gudoomiyaha xisbiga xisbiyadiina mucaaradka sidee u saameysay khilaafkii kulmiye waxba wallahi nooma saameynin waana jecelahay horta xisbigu xaq buu leeyahay inuu murmo in la iskurnaas gareeyo magaranaysa musharaxa xaq baa loo leeyahay laana waxa weeye kow inuu xisbigu inuu guul helaa weeye marka haddii ay isqabteen oo yidhahdaan ana kaaga habboon maanta oo yidhi Siilaanyo isna u daayay arrintaas waxay la tahay dhamaatay ayaan filayaa wuxuu inuu waa fan ka sameynaya dee waa la is-challenge gareeyaa marka challenge-ka uu dhammaaday wax dhibaato ah arrimaha Soomaaliya si guud haddaan su-aalkaaga weydiiyo marxaladda Soomaaliya maraysa waad ogtahay Somaliland meel bay keligeed fadhidaa magaalada Muqdisho xaaladda ka taagan waad ogtahay ka siyaasi ahaan iyo ka oday Soomaaliyeed ahaan maxaa ku muuqda dad yooga Soomaaliyeed ee geeska Afrika degan wadciga imika ku sugan yihiin iyo mustaqbalka maxaad adigu saadaalinaysaa Soomaaliya horta haddaanay bedelin imika se u socoto Soomaaliya halkii laga raacay waxay ahayd kow hoggaan xumo ilaa haddana ma jirto leadership vision leh aragti leh waa qabyaalad labadii cudur weli way jiraan Soomaaliyana maaha in la sii katfo dhibaato weyn bay keenaysaa waxaa keenaysaa dhibaato weyn oo kale keenaya in wadamadii jaararka ah oo interest wada le gaara in la yidhaha idigu Soomaali ka taliya se u ekaanayso taasna waa dhibaato kale wey inay Soomaaliya inta waxaan iska ilowdo inaanu Sawaaxili iyo Uganda iyo heshiisiin Soomaaliya dan Soomaali wadan waa la garanayaa inay isku yimaadaan iyagu ay heshiiyaan oo beelaha ay ka soo jeedaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu way istileen ma heshiin dawlad aan wada dhisnay yiraahdeen maxaan wada dhisnaa aan Soomaaliland soo qabano common interest qowliga waxa weeye Soomaaliland aan curyaamino subxaanahu wa ta'ala ilaahina subxaanahu wa ta'ala ilaahay baa Soomaaliland abuuray anaga gacanta ku hayna waxaan fiican anaguna roolkayga waan ka ciyaar weynay in anagu isku yeedhnahay gogasha u fidnahay hagaajinahay iscafiyaan marka iscafiyaan la isku garaabo ma idin banaani marka roolkaas ma idin banaani haddaan soo baxno dhowr jeer waan sheegay marka way igu jirtay haddii xisbiga soo baxo faylka Soomaaliya anaga qaadana anaga gacanta ku dhigana anaga leena shaydaanka idinko marka Soomaaliya ku anaga maxaa nagu celiya Soomaaliland
soomaaliya ku biirmayno never again taas dhici mayso ilmo 20 jir ah hooyadii laguma celin karo necessary-na maaha haddaanu aragay necessary waan yeelayn laakiin looma baahna waa gartay waxaad ka hadashay magaalada muqdisho iyo koonfurtood leedahay fargelin badan oo dalalka dariskaa jira dadka arrimaha soomaaliya iyo khubarada la socdana waxay ogyihiin in keliya aanay ku ekeen dhinaca koonfurta ee soomaaliya somaliland ba ay tahay oo matalan dowladda dariska ee idinlaha etoobiya oo kale aad si weyn iskugu xidhantihiin oo aydan xitaa mararka qaarkood go-aamaday iyadu soo jeedayso aanay somaliland maya odhan karayn marka maxaad si gaara ugu bartilmaameedsanaysaa koonfurta horta anaga etoobiya lafa iska badan ku warramay 60% dadka etoobiya u tagaa soonaha shanaad baan ku xidhannahay dhinaca kale maalin qura xadku naga xidhmo ma noolaan karno we have respect waxaan leenahay mutual relationship baleen waa is ixtiraamnaa laakiin dee anagu noomay samayn Soomaaliya anaga samaysanay ugu dambeyntii doorashadii baa soo dhow 2 jeer baad doorasho gashay labadiiba waad weyday mustaqbalkaaga siyaasadeed muxuu yahay primary-ga ma aan kursi fuulo ujeedu waxa weeye inaan fikradan qabo ee Soomaaliland ku hormaray inaan hirgalan goormay markaa fikradani soo dhamaanaysa markaan helo doodka waa doorkeygii waad arki doontaa dalaysay Soomaaliland u leexanayso u qeysato inta noolahayna ka bixi maayo siyaasadda ilaa aan fikradahayga hirgeliyo dadka qaarkood waxay leeyihiin Faysal hadduu fursad ka heli lahaa dhinaca magaalada Muqdisho iyo dowladdaasi uu tagi lahaa maniga waxaad moodahay ragga qaarkood aan tilmaamay iyagii ma kaga hor joogaa laakiin haddii lagu yeero ma tegaysid waxaan ka doonayaa daartii u dambeysay sanad maalin u taybi anu ninka ku ila Soomaaliland Soomaali u socda wana aqal lahayn Soomaaliland ana igu dhisantay marka waxa weeye anu Soomaaliland baan hadii Soomaali socon weydana finish baan aad baad Faysal u mahadsantahay inaad nagu soo booqato daarta VOA Washington intaasina waxaan ku joojinayaa barnaamijkeennii martida mikrofoonka oo toddobaadkanna uu marti iigu ahaa guddoomiyaha xisbiga u cid ee mucaaradka Somaliland Faysal Cali Waraabe